codeeyay haatan waxa kaliya la sugaya cidii sharciga wadanka ku xukumeelada noo soo bixi lahayd propaganda madaxina lagaga wareeriyay hebel baa soo baxayay hebel baa dhacayay annaga xisbi dhaca iyo shakhsi dhaca midna waxba naga quseeyaan waxa la wixii awoodan hayna waanu idin siinay cidii sharci nagu hogaamin lahayd ee gudiga commissionku ku dhawaaqaan baa annaga noo hogaaminaysa 5 sano soo socda 5 kalena cidii cimriga ku simaaya kula tartami doonta Soomaydaan garanay waxa weeyaan war xisbiga talada haya ee dad badan carabka saa ugu hayaanay leeyihiin uu baabaayay uu kanoobayay haduu soo noqdo wadanka ka taliyana arka haduu mid kale yimaado ka taliyana arka Soomaydaan garanay waxa aan qarsoodi lahayn dalalka daris qaar kamida oo Ismaaciil Umar Geelle kamid yahay dareejo buti isku wada darina iyo Xasan Sheekh oo Soomaaliya xamar ku dari maayeen ayaa badda ku kiciyay gadar baa badda ku kicisay Masar baa ku kicisay waxa weeyaan xisbi intaas oo duban la isugu keenay oo lagu garaacay oo madaafiicda lagu garaacay haday wax ka noolaadaan la shaqeeya hadii uu sidaa ku tagana warku gambaan ku idho annaga wixii dhimanayay wixii noolaanay waxba naga ma quseeyeen awoodayadii waan isugu geynay kii hore u talinay hadii soo noqdana waan la shaqeynaynaa laakiin inta wax dheer oo bab laga yiraahdaa meeshan ma taalo mid kalena niyadiina u sheega shacabka Soomaaliland oo qulubtiina mideeya oo dadnimadiina mideeya hadaad midayn weydaan cid idin ka futaxo ma jirta baan ku idhi idinka ugu arag xun baan ku idhi waayo imanka dalalka dariska iyo maxaan ku raaday dalalka kale waxay sidaa u sameeyeen waxa weeyaan heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray haduu Muuse ka baxo uu baabi'i bay isleeyihiin laakiin waxay ilowsan yihiin in hadii uu irraxiita yimaado uu heshiiskaasi shaqayn doono haduu Muuse soo noqdana uu shaqayn doono haduu mid kale yimaadana uu shaqayn doono Soomaad gar war nolosha waa la isoo eersanaya war fadhiga la isoo eersanaya imika idinku celinaya haduu saaka lagu dhawaaqo xisbiga wadani horaanu kala shaqaynayna hadii Muuse soo noqdo horaanu kala shaqaynayna war inta ka badan miya maxaa dadkii loo wareerinaya ebal dhamaantood ay doontaan hawada baabaan waxba naga xuseeyaa wixii sharci nagu xukumayaan naga noodana wixii waxaan ku yidhi daan dadku isugu talaabayaan ay dawadooda iyo biyahooda iyo wanaagooda iyo sharafkooda iyo dhalashadooda kala qaadanayaan baa naga noodana maxaa naga xuseeyaa waxaan leeyahay waxba baabay waxba kalena xaq waxaan la ku lahaa inaan u codayno horboodno waan horboodnay Soomaydaan garan hanagu wareerinina Soomaydaan garan Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku celinayaa bay ku leeyihiin haduu wadani yimaado sharba kuma ogi anigu hal isku kaaya celiyo xajira imika baasaboorkan ku dhoofnaa waa maxay kii Soomaaliya ma aanu hay maxaa aad noogu bahala galinaysaan bari ka maalin hadii si sharciya loo kala tago baasaboorka iyaga aqoonsiili inta ka horeeya diin lagu celiyeen aanu dambi uma arkayo Soomaydaan garan waxa weeyaan laakiin xisbi walowba markaad soo baxdo ayay tuwaawarta iyo inoo taala falanqadu Soomaad garan dad xumo iyo dad wanaag waxaad la timaado Soomaad garan marka walaaliyaynaan is wareerinine propagandada barartiyo inta naga daaya kuwa dhacayo kuwa soo baxayowna hayso sad barnino da faraadaqdiya bacbacda yaraysta haddaad kulmiye ka soo baxdaan iyo haddaad wadani ka soo baxdaan iyo haddaad cid kale ka soo baxdaan be hana wareerinine nabadeen war shantii Soomaaliyeed noo soo duceeyo walaalo noo soo duceeyo lawanaga anagu halkeed ka soo karbaashi jirnay mise karbaashku bay noo kordhin xaalku waa sidee hedhadii baa ku yiri war yaadheen wadalkaagi doqoniyo wadalkaagi dabaliyo wadalkaagi doqoniyo wadalkaagi dabaliyo